sida maanta maxsan loo garaacay unba jaabirna loo garaacay xamsana loo garaacay adigana anaa kugu filan ayaanay xamdina dadku ku filan waa la og yahay waxa ayaan dhaweed baraha bulshada soo gaaray video ay dadyo badan oo caalamka ku nool shock ka qaadeen qaarkood ku saseen qaarkood ilaa iyo hadda ay cunto ka cuni laayihiin videogaasna wuxuu ahaa gabar Soomaaliyeed oo gabar kale oo Soomaaliyeed ku dul fadhida birna madax kala dhacaysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad dunida ka joogtaan waa anigu walaalkiin maxamed xasan youtube ka daawanaysaana waa another one tacade haddii aad cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo channelka gambaleelkana furato si ay kuu soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay videogana like saar waadna ku mahadsantihiin mar walba garab istaagina joogtada ah sida caadada iyo dhaqanka ahaydna kusoo dhawaada barnaamijka dhabka hadal oon ku falanqeyn doono xaaladii ugu dambeeyay magaalada Nairobi dagaalkii u dhaxeeyay Najma DDS iyo ayaan dhalad oo sii fiday meel xunna gaaray xaaladuna hadda ay tahay meel qaraar dhiiqana lagu hadlay iskuula jiro waliba kadib xalay markii ayaan dhalad walaalkeed ay tuuray la dhaceen wiilal la dhashay Najma DDS oo argudasho ugu tagay wiilka ayaan dhalad la dhashay kadibna dhibaato ama waxyeelo gaarsiiyay marka hore waxaan rabaa inaan videoga idin la wadaago kadibna wixii aan ka dhihi lahaa ka dhaho kadibna idinkana commentiga fikirkiina aad ku dhiibataan marka hore waxaan rabaa inaan idin la wadaago videoga wiilka la leeyahay waxaa lala dhacay tuuray ayaan dhalad wiil la dhashay oo caab lagu dhaawaco xaafadda Isli waxaa tuuray gelgeliyeen wiilal la dhashay Najma DDS ayaga oo aaraya cadaawadii walaasheed ka dhaxaysay gabadhan Najma DDS wiilka dhaawac daran ah waxa yaala isbitaalka Al-Amiin wiilkan wuxuu la dhashay ayaan dhalad oo tuureeda lagu durduray ama la gelgeliyay waxaana gelgeliyeen Najma DDS ma la yiraahdaa gabadha la yiraahdo oo markii hore dhibaato xoog leh oo bulshada caalamka oo dhan ay ku saseen ama ay shock ka qaadeen ay u geysatay gabar liyaa ayaan dhalad waliba dukaankeeda dhexdeed ayaa gabadha lagu dilay dhammaan dadka dhiiga leh ee damqada videogaas way ka xumaadeen runtii wuxuu ahaa video wuxushnimo bahalnimona ka muuqata waxaan rabaa mar kale idin la wadaago dadyo fara badan oo ku soo xoomay isbitaalka hortiisa oo oynaya واركتين حالك وحون يهي والاسكو عكيرين يهي اسبتالكا لهور دوين يهي نجمو والالكيد ايال الدلي حالكو مسهلنا حالكونا ماشي ليقاني انتي ليقاني ويسو دافتي قبدا لدلي مركي هوري نجمة DDS ايضنا وحي صدوبتي فيديو اي وليبا هنجباتكو بحنيسو او اي كوليدا هاي سيدا والالكا هبل لو دلي اكن كاللو ادينا مركي وحاربا فيديو قصنينا إلى دعوتهم. sida maanta maxsan loo garaacay unba jaabirna loo garaacay xamsana loo garaacay adigana anaa kugu filan ayaanay xamdina dadku ku filan waa la og yahay aniga maanta anoo dukaankayga joogaa video iga soo dubtay adugu cadaan iskaga samaysay laakiin waxaad ogaataa aniga videoyadan adiga kaa duubi doono inay kalaan وأجدان معناه وحاهن جبيس نجمه وحليدا ميت كان سيدا لو دلي باكن كان لو دلي دونا كان كسي حقنا لو دلي دونا ogow labada gabdho waxay guud macna madaxa guud ee ka dhasheen hal beel laakiin jilboodii hoose ayaa kala duwan hadda waxa la isku dirirayaa oo magaalada Nairobi la suuraasana laba jilib dagaalkii labada gabdhood ka qarxay hadda laba jilib oo kamid ah beelweynta ogaadeen ayuu isku bedelay barnaamijkan gabadha la dilay markeedii hore waa gabar makaayil oo maqaabula gabadha wax dishayna waa Maxamed Zubeer dhammaantood waa ogaadeen waa dad walaalo ah mala kala foga mala kala dheera haddana maanta waxay isku dilayaan ayaa ah qaab beeleed Najmo dhaawac xuna horta soo gaaray ummadoo dhan ka naxday ayaan dhalad si wuxushnimo ay gabadha u dishay markeedii hore runtii waxaana maqli jiray yaa habar dilay oo cararin waxa arkayay shalay ilaa daraad inkastoo aan ka hadlin dagaalkan markiisa hore xitaa kama aanan hadlin gabdho kale oo ilaa 5 gaarayo oo video isaga soo duubay dukaanka ayaan dhalad hortiis oo leh kaalima dukaankaaga furatid
kama aanan hadlin ayaan dhalad weli way shaqaysan la'dahay kadib falkii wuxuushnimada ahaa ay geysatay kadib way ganacsan la'dahay shalay waxay ahayd gabar shaqaysata oo dukaankeeda furata maanta way shaqaysan la'dahay taas waxay caddeen kugu filan tahay in nabad ay wax ka wanaagsan aysan jirin nabad aa naas la nuuga leh dagaal noo faa'iido haddaa maanta waxa dishid beri meelaa maraysid malaha haddii lagu dilana dhibaataa qabtaa marka waxaa wanaagsan walaalow waxaan een rag waa lagu waayaa la yiri marka dagaal waa laga wanaagsan yahay marka waxaa rabaa markii la dilay ayaan dhalad walaalkeed la tooreeyey gabadhii najme ahaydna ay soo hanjabtay iyadana ayaan dhalad video ay soo duubtay videoga ayaan dhalad ay soo duubtay balila arka gurigeeda gaarigeeda adduunkeeda qurux badan u quuri waayaba isciirjiya laakiin nasiib xumada jirta maxaa waaye aday kugu soo askabanaya intaas ugu imaanayaan doqonay adigana ilaaha baa ikaa badbaadin karo ayaduna waa tanaa ayaan oo hanjabaysa oo leh doqonay magaalada ka bixi meela aadid adaa og ee dadka iga xunna adigu kugu soo dabagambanayo yaa adiguna ilaahay unbaa iga kaa celi kara leedahay marka labadaa gabdhood arrinkoodii meel xun u marooyaan inkastoo gabadha ayaan dhalad la yiraahdo markii hore falka ay geysatay ma ahan fal ummadda Soomaaliyeed iyo dadka caalamkaba farxad geliyay waa laga naxay falkaas runtii aniga markaa arkay xataa aad baan falkaasi ugu xumaaday gabar Soomaaliyeed oo gabar kala dul fadhida qaraabo ah walaalo ah wax ehel ah isku dhow isku dhiig ah isku tol ah isku qaraabo ah oo dad gaaray ilaa iyo tiro 4 iyo 5 ka badan oo wiilal ay ka mid yihiin oo codkoodii aad loo maqlaayo oo gabadha muuqata in gabar kale ay u keenaysa birta gabadha Najma DDS-na waxaa meesha ka caddeed runtii in markii hore la legday oo barnaamijka markii hore markuu bilaabanay camera aan la duubin gabadha markii lagu fariistay oo loo jilciyay kadib birtana loo dhiibay dil la yiri taas waxay caddeen kugu filan ay tahay gabar dagaal galaysa oo jilbaabkeeda ayadoo wadata gabar kale awood ku legda ku fariisata macquul ma aan aqli shaqeeyana ma aan xaqiiqda gabadha weliba lagu fadhiyey iyo mid wax ku fadhisay marka qiimeen ku sameeyay waxa xoog badneed gabadha lagu fadhiyey haddii si macnaa cadaalada labada gabdhood ay isku farasaari lahaayeen in ayaan dhalad barqa cad la leefi lahaa ay ani ila tahay sababtoo ah waa dareemay gabadha ayadoo dhulka lagu hayo siday xoog leh ay u dhaqaaqaysayeen fahmay inay gabar energy leh tahay inay gabar xoog badan ahayd ayadoo madaxa bir lagu dhacayo la dhacayo ayay is adkeenaysay runtii gabar geesiyada ahayd markii xaqiiqda laga hadlo xaqiiqda muhiim ah mar walba in la taabto gabar geesiyada ahayd ayaan dhaladna waxaan leeyahay gabadhaasi iyo adiga wanaaga ayaa idin deeqa kulay dad walaalaha la iskuma sii soofeeyo laakiin ayaan dhalad waxaa samaysay ma ahan wax lagu farxo haddana aday ku heesataa inaad shaqayso weysay way iska caddahay inaad maanta meel aadi weysay way iska caddahay baqdin badanaa kaa muuqato ileen la yeela wuu hilmaamaa la yeela ma hilmaamo gabadhaa sharaftaa ka qaaday dadka hortood aa ku dishay bir aa madax kala dhacday runtii gabar ku deynaysa ma ahan gabadha Soomaaliyeed ee Najma DDS ee dhibaatada gaartayna runtii xaaladeeda caafimaad waa khatar madaxeeda jug culus gaartay inay ayaduna yareysato ma ahan inay caafimaad ahaan maskaxiyan aad ay isu baarto computer isa saarto ama scan si caafimaadkeeda mustaqbalka ay u hagaajiso sababtoo ah madaxaasi birta la dhacay oo aan arkay ma nabad qaba فيديو كانت أنا كسوق قبل قبينا تاني كلن تدينا ضمبي